hadal waa margi haddii aad maqasho waa sidaan oo kale. wariye ayaa waxa uu wareysanayaa nin mas-uul ah ama madaxweyne ah. markaas ayuu weydiinayaa su'aal ah, madaxweyne miraha ama furuutiska noocee ugu jeceshahay? madaxweynihii ayaa ku jawaabaya tufaaxa. kadib wariyihii war degdeg ah, madaxweynuhu waxa uu jecel yahay tufaaxa. idaacadihii ayaa warkii sii qaatay, madaxweynuhu wuxuu jecel yahay tufaaxa, ma jecla cambaha, muuska, liinta iyo babayga. fadhi ku dirirka ayay gaartay, mirihii miyuu kala doorbiday oo hal nooc ka jeclaaday? cadaalad ma jirto. siyaasiyiintii mucaaradka ahaa, tufaaxa midabkiisu waa casaan, marka waxa ay ka dhigan tahay inuu jecel yahay dhiigga inuu daato, ma jecla nabadda iyo midabka caddaanka ah. aqoon-yahanada siyaasadda ka faallooda waxaa dhici karta inaanu ula jeedin tufaaxa la cuno ee uu ula jeedo shirkadda Apple. haddii ay sidaasi tahay, wuxuu isticmaalaa alaabahooda oo waqti badan uu ku lumiyaa. bulshada rayidka ah, arrintani waxa ay dhaawacaysaa horumarkeennii aan hiigsanaynay ee ahaa in aanu magaalooyinkeenna cagaar ka dhigno. odayaashii, dhaqan ahaan annagu cambaha iyo muuska ayaan cuni jirnay, waa wax nagu cusub arrintan. baraha bulshada, xaggee ayaad is leedahay in lacagta uu tufaaxa ku iibsado ka keenay maadaama tufaaxu yahay miro qaali ah? wadaadkii, bun iyo salool ayay barakadu ku jirtaa oo dadkii hore isticmaali jireen. dhaqaaliyahankii, ujeeddada madaxweynuhu uu tufaaxa u ammaanay waa in beeraheena saytuunka aan la iibsan oo suuq la'aan nagu dhacdo. haddaba daawade, maxaa kaaga baxay muuqaalkan? like dheh, sidoo kalena asxaabtaada kale u sheer garee ama koobi linkiga taabo. waxaan kaloo kaa codsanaynaa inaad follow inaga soo dhahdo barta Instagram-ka, profile-ka ayuu saaran yahay. mahadsanid.